السلام عليكم أصحابتي أنا سلامي كلها وزير هذا أو شري waxaan leeyahay Soomaaliya guuleystay in cadawga Soomaaliya dib Allah ku rido ayaan leeyahay Soomaalidu sida oo dhimo saala socotaan midowga Yurub ayaa wax soo saaray digniin oo maartay macna Soomaaliya u digayo iyo sidoo kale maxaan ku raay safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka iyo Mamutu oo ka digayay macnaha isha oo yiri Soomaaliya dhaqaalaha ka goosanaya iyo saan iyo cadaadis waxaan ka soo horjeedaa macnaha waxa reer wasaaraha Soomaaliya kula dhaqmay waxa reer wasaaraha Soomaaliya lagu dhaqmay waxay ahaayeen wax sharci ah saala socotaan موشن waa iska keeni jiray inkastoo ay degdeg ku dhacday laakiin waa wax hore u soo dhici jiray oo caadi oo sharciga Soomaaliya uu qorayo afaarahaasna afaara asaga u banaan maba ahanba Mareykan afaara u soo gali karo ma ahan Soomaaliya waa dal madax banaan dadka Soomaaliyeed waxa ugu celcelinaya dadka aan fahansanayn Soomaaliya waxay madax banaaneen markii niman la soo doortay ay Imaaraad iyo Qatar iyo wadamo noocaas ay soo doorteen iyo Norway iyo Ingiriiska iyo wadamadaas markii dad ay kala wateen ay Soomaaliya madaxda ka ahaayeen markaas Soomaaliya ma madax banaaneen laakiin Soomaaliya laga bilaabo 8 February 2017 ilaa hadda waa dal madax banaan waa ina ogaataa Soomaaliya wixii ka horeeyay 30 sano Soomaaliya waxay ahayd dal aan madax banaaneen ee qaramada midoobay ay u taliso laakiin waxa ogaataa Soomaaliya maanta inay tahay dal madax banaan oo caalamka ka tirsan oo madax banaan oo lagu xadgudub karin iska dhaaf isheeg in Soomaaliya lagu xadgudbay macna isheeg ama gobol wuxuu doon iska sameeyay carwo kaasaay hal talaabo hore u qaado Muuse Shaani iyo teamkiisi sidii doona yeeri jiray carwo kaasaay hal talaabo iyo dani hal talaabo hore u qaadan hal talaabo hore uma qaadi karaan shirkad lama heshiin karaan wadamo kale maxaan ku isheeg ma tagi karaan isheeg heshiis lama gali karaan يعني إيش دب دم wax dambe oo ay sameyn karaan haba yaraatee ayagoon wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayagoon soo marin horjoogayaasha Soomaaliya hal talaabo hore oo qaadi karaan Soomaaliya taasa ku cadeynaysa inay madax banaan tahay dal Soomaaliya isaga xad gudbi kara ama Kenya ha noqoto ama Ethiopia ha noqoto ama Mareykan ha noqdo ama Dubai Asia Imaaraadka ha noqoto ama Saudi Arabia ha noqoto ciday doonto ha ahaatee Soomaaliya qof ku xad gudbi kara xataa Djibouti ha noqotay Djibouti oo walaalanahay xataa isku day inay ku xadgudubto Soomaaliya talaabo sharci laga qaaday wax kale iska dhaaf cid Soomaaliya nagu xadgudbi karta way yaraatay ma jirto waa ina taa ogaata wala Mareykan safiirka Mareykanka har cad ayaan eriyna har cad shilimaadka uu sheegay oo leeyahay waxbaan in ka jarayaan ma u baahna Soomaaliya maanta deyntii waa laga cafiyay nimankan reer galbeedka ah autoritaatida aan ku jirna waxay ahayd caalamka ganacsi lama sameyn karin laakiin maanta maadaama deyntiina laga cafiyay ganacsi ayaan la sameyn karnaa Shiina waxaan la sameyn karnaa isheeg Hindiya waxaan la sameyn karnaa Pakistan waxaan la sameyn karnaa Turkiga badeecadeenan meel walba u dhoofin karnaa isheeg waxaan doonaa meel walba ka soo iibsan karnaa waa ina taa ogaataa Soomaaliya maanta deyn lagu ma laha ganacsigan doonaan gali karnaa waana madax banaanna Mareykanna uma xirxirnin reer galbeedna uma xirxirnin waa ina taa ogaataa shalay runta loo sheegay waxa lagu yiri dib dambe Twitterada wax uma soo qori kartaan haddii aad doonaysaan wax kasto aad doonaysaan wasaaradda arrimaha dibadda uu imaada u sheega kanaalada diblomaasiyadda Soomaaliya ma Soomaaliya dawlad Soomaaliyeed oo saa u hadashaa waliga indhahaaga saarta waa maya Soomaaliya maanta waa dal madax banaan aad baan u mahad celinaynaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalintii la doortay ilaa maanta Soomaaliya way madax banaanta wixii ka horeeyay Soomaaliya ma madax banaaneen Kenya looga talin jiray Ethiopia looga talin jiray Imaaraadka u talin jiray wadan walba ayaa Soomaaliya soo doona ka yeelan jiray qashin qofka lagu shubi jiray Lubnaan dalka Lubnaan qashin buu ciiray qashinkiisi waxa lagu shubay badda Soomaaliya waxaan u saxiixay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u saxiixay hadii aad heshiiskaas badda Soomaaliya qashinka loogu shubay haduu been noqdo dib dambe hay daawan hadii heshiiska Cali Mahdi uu la galay isha dalka maxaan ku raacay uu la galay dalka Ingiriiska waxaan ka wada dalka Talyaaniga uu la galay 92 hadii uu been noqdo sunta nuclearka haraadiga nuclearka suntiisa in badda Soomaaliya lagu shubo heshiiskaas hadii uu maxaan ku raacay wasiirkii deegaanka Cali Mahdi dawladda Cali Mahdi madaxweynaha ka ahaa hadii aysan la galin Talyaaniga oo badda Soomaaliya aan lagu shubay sunta nuclearka dib dambe hay daawan hadii heshiiska baddeena lagu dhiibay Sheekh Shariif uu maartay macna isha uu ka dambeyn waayo oo Sheekh Shariif uu ka dambeyn dib dambe waxaan sheegay ha u aamin adeerow dadkani waa dad tuuga oo burcad
ما يقان نكوسو علنا ما دالكينا waxaan u hibeynaa shakhsiyaad dalkeena miyaa uga sabarnaa qabiil علشان قبيل miyaa ku taageernaa xasan sheekh oo tuuga ma qabiil baan ku taageernaa cali maadi oo tuuga ma qabiil baan ku taageernaa dani oo tuug ah axmed madow oo tuuga waa maya kuma taageerin anagu dalka anaga iska leh haddii aad adiga ku taageeraysa adiga kaliya ku taageer Soomaali kala ka badan waa inaad taa ogaataa qabiilada ay sheeganayaan dani axmed madow iyo maxaan ku raashay jifooyinka ay sheeganayaan ku abtirsadaan Soomaalida kala ka badan waa inaad taa ogaataa jifada xasan sheekhow waxaad ogaataa Soomaalida kale inay ka badan tahay dalkana kula leeyihiin aan dalkoodana iibin karin taageero calaashan shakhsi aad qabiil ku taageeraysid jifada axmed madow waxaad ogaataa in Soomaalida kale ay ka badan tahay aysan ka yeeleen dalkooda in Kenya u qaato oo badooda lagu wareejiyo oo Jubaland Kenya ka tirsanaato no kama yeeleen Soomaalida kale ka badan waa inaad ogaataa waxa weeye shacabka Soomaaliyeed baa codeynaya qofkii ay ku qancaan baa soo baxaya madaxweynihii isku dayay dalka Soomaaliya inuu qaybo kamid ah wadamo kale u saxiixo ama madax banaanida Soomaaliya uu ku xadgudbo ama dalka Soomaaliya macdintiisa uu dhoofiyo oo iibsado waxaad ogaataa in shacabka Soomaaliya ay codeynayaan oo ay ka tuurayaan xilka waa inaad taa fahantaan waa inaad fahantaan sharcigan doorashooyinka Soomaaliya one man one vote wuxuu u fiican yahay shacabka Soomaaliya wixii ay doonaan bay diidi karaan qofkii ay doonaan bay dooranayaan waa inaad taa ogaataa dib dambe uma dhacayso shakhsiyaad kabaha u tirtira imaaraadka amiirada imaaraadka iyo Kenya sakanduridu ay ku adeegato qadaamin u ah inay dalkeena madax ka ahaadaan horta qof qadaam ah qof daba dhilif madax ma noqon karo qof qadaam ah oo nin ficiisa kabaha u tirtira guryaha u xaq waliba gabdhiisa ku dara wariya mihiga gabar Soomaaliya lagu daray علشان دراها بوتلان سوء فوليو نعلة الله عليكم waxaan noocaasa dalkeena laga yaabo dib dambe inuu soo laabtaan qashin ku dhalay midgaa dib dambe oo soo laabanaya saddex nin oo isku jifaa oo xasan sheekh ku jiro oo cali maadi ku jiro oo sheekh shariif ku jiro saddexdu tuugay ahayn ma been baa isku sheegnaa mise runtaa inii sheegnaa saddex nin waa saddexdu waa tuugo saddexdu waa khaa'imin saddexdu waa daalimin saddexdu waa daba dhilfin waa xasan sheekh waa sheekh shariif waa nikliya cali maadi waxaas miyaa annaga maanta marka jifada ay sheeganayaan miyaa Soomaaliya iska leh jifada ay sheeganayaan ay ka soo jeedaan miyaa Soomaaliya iska leh mise Soomaaliya annaga dhan baa wada leh malaayiin ta kale ee Soomaalida baa ka badan saddexda jifee Soomaaliya 4.5 ka faa'iidi jirtay saddex jifaa ka faa'iidi jirtay Soomaaliya hal jifo oo majartaankaas hal jifo oo abgaalka hal jifo oo ogaadeen waa inaad taa fahantaa ilaa iyo ilay jifadaas ilay ee Somali state jifadaas uu ahaa waa inaad taa fahantaan waa jifooyinkaas miyaa Soomaaliya iska leh marka adeero maanta waa xisaabtamaynaa dalka noo dhaaf jifooyin fashilmay baa tihiin jifooyin tuugaa baa tihiin jifooyin xaaraamiin baa tihiin kuwa qabyaalaystayaal baa tihiin kuwa dhintay baa tihiin dad dhintay baa tihiin ilaa iyo dad mahiiga gabadhooda ku daray dadkaas miyaa gob ah dadkaas miyaa Soomaaliya dadkaas miyaa dadnimo leh dadkaas miyaa dad no adeerayaalow Puntland ma lihidin dadka kale oo degan baa in ka badan Somaliland ma lihidin ishaag maxaan ku ishaag Banaadirland ma lihidin Muqdisho 4 milyan oo Soomaaliya degan 4 milyan ma labada jifaa 4 milyan baa Muqdisho degan waa inaad taa fahantaan waa taa xisaabta ku darsada Soomaaliya maanta waa dhaqaaqday Soomaaliya waxa xorowday 8 February 2017 waa xornimo ugu horeysay runta markaa isku sheego wixii ka horeeyay jifooyinkaas daba dhilifiinta baa Soomaaliya madax ka ahaa say doonaan may ka yeeli jireen dadka Soomaaliyeed kaligood baa ka shaahi jiray meeshaas kaligood baa ka shaqaale ka ahaa kaligood baa cuni jiray kaligood baa Soomaali ahaa kaligood baa cod lahaa kaligood baa madax noqonay kaligood baa say doonaan yeeli qandaraasida ugu badan ee qaadanay waxbarashada eega lahaa war anagu maxaan lahayn marka Soomaaliya kale maxay lahayd nothing baan ahay nothing maanta nafta kaliya noo hartay waxay tahay waa one man one vote inaan ku caana maalno inaan ku dhagno inaan yeelin kii ka soo horjeesta waa inaan la dagaalnaa kulligan waa inaan la dagaalnaa one man one vote ayaa Soomaalida saddexda jif waxaan ka ahayn oo dhan Soomaalida kale oo dhan ana cod ah waxa anaga dan ugu jirtaa one man one vote dalkeena kaasaan ku badbaadsan karnaa kaasaan uga badbaadi karnaa Imaaraad kaasaan uga badbaadi karnaa Kenya kaasaan uga badbaadi karnaa in la adoonsado kaasaan uga badbaadi karnaa in dhalinyarada ay dalkeena ka taribto علشان شغلان وحبرش الآن عاف مال الآن
aan marka ku fara adeegno madaxweynahan waa madaxweyne noo hiiliyey malaa'igna loo soo diray runtaan rabaa inaan idin sheego maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne ka wanaagsan soomaaliya qarnigan iska dhaafe qarniyada soo socda xataa ma soo mari doono runta markaa isku sheego waa daacad waa wadani waa ishag waxa weeye waa ishag waa yani yani ishag waa anti qabiilista qabiilku necab yahay waxa weeye waa shaksi aad iyo aad u fiican waay naxariis badan soomaali jacayla wadani ah xalaal ah waay dhalinyarada ciyaalka yarkaa maanta ka fikiray inay waxbarasho bilaash helaan agoonta ka fikiray kuwa xiran ee maarata caalamka ku xiran ka fikiray qof soomaali ah oo maxamed cabdullaahi farmaajo ka fiican maalintuu yimid baa la qadeeyey maalintuu yimid baa wax la cunay maalintuu yimid ayaa nafi nagu soo noqotay maalintuu yimid ayaa la badbaaday maalintuu yimid ayaa ciidanka soomaaliya ay mushaar heleen runta markaan isku sheegno maxamed cabdullaahi farmaajo weligeed soomaaliya ma soo maray weligeed aliis runta markaan isku sheegno kuwa shakhsiyaadka maxamed cabdullaahi farmaajo qabiilka ku nacab haddaad qabiilkaas aad nacabtihiin gadud joogaayo u taga cawd aqbu joogaayo u taga laakiin maxamed cabdullaahi farmaajo qabiilkaad sheegaysaan ma aha waa inaad taa fahantaan waa qabiil haddaad nacab tahay oo mareexaan ay wax ku geysteen maxamed cabdullaahi farmaajo mareexaan ma waa soomaali waa inaad taa fahantaan waa wax badan ayaa handikaabnimo nala kusoo waday wax badan baa dadkeena naloo xumeynay wax badan ayaa shaksi qabiilna lakugu tilmaamay no more saaxiib ma aqbalayno sidoo kale waxaana kugu darayaa xasan cali khayre laftigiisu waa wadani waa siyaasi qorshuu watay madaxweyne uu noqdu rabay waxaan aaminsanahay hadduu madaxweyne noqon lahaa xataa xasan cali khayre inaysan soomaaliya inaan lagu xadgudbeen soomaaliya inaan si la doon laga yeelan waxaan ogahay xasan cali khayre inuu yahay wadani taasaan rabaa inaan xaqiijiyo laakiin qaabka uu wax u waday ayaa wuxuu ahaa qaab qaldan qofku waxba ka qaldami karaan anigaas ayaa maanta bangiga intaan tegay biinkoodkayga aan 10 sano isticmaalay iska qalday waa inaad taa ogaataa qofku wax waa qaldi karaa qofku wax waa qaldi karaa bilaadanka waxaa rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed ha ku mashquulinina xasan cali khayre yaan lagu mashquulin mustaqbalkiisa siyaasadeed yaan lagu dheelin hala taageero hadduu xisbi keeno hala garab istaago ayaan leh wallaahi oo bilaahi oo tallaahi nin ka qiimo badan inuusan koonfurta soomaaliya joogin taas ayaan rabaa inaan idin xaqiijiyo koonfurta soomaaliya inuusan ka soo jeedin qof maxamed xasan cali khayre ka karti badan ka wadanaysan ka deeqsiisan runta markaan ka hadlo bersonal ayaan u aqaan aniga qof ka wadanaysan oo ka karti badan oo ka soomaali jecel maxaa xasan cali khayre qabiilista maaha bersonal ayaa la ii wada hadalsiiya aniga xasan cali khayre wadani waa geesi waa soomaali waa wadani taasaan rabaa inaan idin xaqiijiyo yaan lagu xadgudbin yaan lagu dheeraan ayaan leh dalkeenna madax banaanidiisa iyo dowladnimadiisa aan wada ilaalin xasan cali khayre hadalka ugu dambeeya uu yiri waa taas waa inaad taa ogaataa wuxuu yiri aniga dalka soomaaliya inay xabadi ka dhacdo uma ogoli in la isku qabsado uma ogoli in aniga dartiis wax u burburaan ma ogoli inaan siyaasadda sii qasamo doonayo waa la shaqaynayaa dowladda ayuu yiri waa inaad taa ogaataa waana garab taagna waa ku qanacsanahay ayuu yiri waa inaad taa fahantaan waa hadalkaas raaca xasan cali khayre wallaahi oo bilaahi oo tallaahi qof ka wanaagsan uusan jirin dadka wax ka sheegaya kuwa caloosha xun kuwa qabyaaladaystayaasha waa kala taqaanaa kuwa waxaa jira maanta gurbaan uu garaacay iska garaacanayo facebook keligood waay lama qabo maxamed cabdullaahi farmaajo waa inaad taa ogaataan maxamed cabdullaahi farmaajo lama qabo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee soomaaliya haddana ra-isul wasaaraha ah lama qabo mahdi keligood baa gurbaankaas qabyaalada garaacanaya dadkaas waxaa loo baahayahay inayna hadalkooda waxba ka soo qaadin waxbaa ka soo qaadinin kuwa keligood qabyaalada u sacbatumaya ee ka dhigaya maxamed cabdullaahi farmaajo calaashaan waa reer hebel macnaha baan ku taageeraya waxaa ogaataa asaga qabiilistaa maaha maxamed cabdullaahi farmaajo ma aha waa inaad taa ogaataa kuwa khayre ku taageeraya qabiilka ayagaa qabiilistaa xun waa inaad taa ogaataa ayagaa xun ayagaa ah dulli laakiin xasan cali khayre ma aha arrintaas waa inaad fahantaan wa maantay waxaan inii xaqiijinayaa tiimka nabad iyo nolol oo xasan cali khayre uu ku jiro dhammaantood inaysan qabiil aaminsanin oo meel ay isaga tuureen oo ay yihiin rag ay ka go-an tahay soomaaliya inay hore u socoto soomaaliya inay nolol hesho soomaaliya inay nabad hesho soomaaliya inay hoggaan fiican ay hesho soomaaliya inay system dawli ah yeelato soomaaliya inaan lagu xadgudbin soomaaliya inay power yeelato power xasan cali khayre iyo farmaajo iyo dhammaan waxay isku dhaarsadeen iyo mahdi dhammaan waa taas waay waa inaad taa fahantaan waay meel walba adduunka ka joogtaan waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo soomaaliya waa guulaysatay runtii aad baan ugu farxay shalay golaha wasiirada soomaaliya bayaankii ay soo saareen ee caddaa ee ay ku sheegeen anaa daraad waxaan kusoo qoray dowladda soomaaliya waa inay u jawaabtaa maraykanka safiirka maraykanka waa in dalka laga eriya ayaan facebook kusoo qoray isla markii maanta ku xigto waa laga jawaabay dowladdan waxaan ku jeclahay wax allaaliy wixii shacabku ay la wadaagaan way ka jawaabtaa waa dowlad shacabka u dhagan nugul ayadoo xasan sheekh dadka uu laynayo oo dhacayo
oo dadka Soomaali ay qaylinayaan oo ay misi jiray shib silence killer asaa dili jiray shacabka asaa dhici jiray shacabka asaa bangiga lacagta kala bixi jiray asaga lacagta beesha caalamka cuni jiray dadka noocaas kuwa qabiil ku taageeray kaligood ay u ahaanaysaa jifooyinkaas aan ka leexano daalimiinta jifooyinkaas daalimiinta aan ka leexano kuwa Soomaaliland jooga jifada aan ka leexano kuwa Puntland jooga Garowe jooga aan ka leexano kuwa Kismaayo jooga jifada aan ka leexano kuwa Muqdisho jooga jifada aan ka leexano waa daalimiin runta raba inaan xaqiijiyo la lama cabi jirin la lama cuni jirin lacagta Soomaaliya iyo dhulka Soomaaliya kaligood baa cuni jiray waa inaad taa ogaataa waxaa jiray xildhibaano wadankan Holland asal deganaa jiray oo baarlamaanka Soomaaliya ku jiray oo beesha Xasan Sheekh u sheeganaya oo ayagoo xildhibaana inta lacagtooda ku qaadan jiray waxa noocaas ayaa jiray scholarship waxa heli jiray isla jifadaas jifada Puntland sidoo kale jifada Kismaayo sidoo kale jifooyinkaas loo soo xiri jiray waa inaad taa ogaataan waa qarankana way khiyaameen Soomaaliya oo dhan way khiyaameen afarta jifo ee daalimiinta aan ka leexano aniga agteeda waa iga dhinteen meel baad ku joogtaan si share gareey